Dowladda Itoobiya ayaa war ka soo saartay colaadda u dhaxaysa Canfarta iyo Soomaalida. Dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa bilowday dadaal ay ku joojinayso dagaalka maalmihii u dambeeyay Soomaalida iyo Canfarta ku dhexmarayay gobolka City. Xukuumadda Addis Ababa ayaa labada dhinac ay dirirtu dhexmarayso ugu baaqday inay si degdeg ah xabadda u joojiyaan, isla markaasna miiska wada hadallada isugu yimaadaan. Dagaalka maalmihii la soo dhaafayna waxaa ku dhintay dad 100 kor u dhaafaya, iyadoo dad intaasi ka badanna ay ku barakaceen. Dhinacyada dagaalamaya waxa ay kala sheeganayaan inay dagaalka guulo ka gaareen oo ay dhulal kala qabsadeen, inkastoo arrintaasi si madax bannaan aan loo xaqiijin karin. Waxaana horay u fashilmay heshiisyo nabadeed oo lagu soo afjarayo colaadda soo noqnoqotay ee Soomaalida iyo Canfarta.